kulantaa baan qaybta daawatayaalkan waa wacyi TV ku soo dhawaada warka oo maalin walba iminka kala daawataan qodobada maanta ku maqal doontaan warkeena waxa kamid ah wafdi sare oo ka socda dawladda Djibouti lagu soo dhaweeyay Muqdisho Puntland oo shaacisay tiro maraakiib sharci darro iyo dalalka laga leeyahay isku shaadeen lagu sameeyay taliyaasha booliska federaalka iyo gobolka Banaadir qodobada dibadda warkeena ku maqal doontaan waxa kamid ah Mareykanka oo Turkiga kala hadlaya inuu ka baaqsado weerarkiisa waqooyiga Suuriya taas waa qodobada warka u dooran iminka ku soo dhawaada iyaga iyo faahfaahsan haatan qodobka ugu horeeya warkeena magaalada Muqdisho caasimada dalka ayaa maanta waxa soo gaaray wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta dalka Djibouti iyadoo lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Cadeey Muqdisho wasiir Ridwaan Cabdullaahi Bahdoon ayaa waxa ku soo dhaweeyay dhigiisa Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta Djibouti oo booqasho ku yimid magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kulan la qaadan doonaa dhigiisa Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey labada mas'uul ayaa waxay ka wada hadli doonaan iskaashiga walaaltinimo iyo wax wada qabsi ee labada dal iyo labada wasaaradoodba isku shaandeen lagu sameeyay taliyaasha booliska federaalka iyo gobolka Banaadir taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Xasan Cabdi Xijaar ayaa isku shaandeen ku sameeyay qaar kamid ah taliyaasha iyo saraakiisha ciidanka booliska isagoo kuwa kale xilka ka qaaday taliyaha booliska ayaa magacaabay taliyaha qaybta booliska Waliyo Cadde taliyaha saldhigga degmada Dharkiinle iyo taliyaha ciidanka birmidka iyo booliska iyo taliyayaal kale sidoo kale taliyaasha la magacaabay ayaa waxa la faray inay si toos ah u gutaan waajibaadkooda shaqo ee loo igmaday gaashaale Mahad Cabdi Xakeen Cumar loo yaqaan Mahad Korow ayaa loo magacaabay taliyaha qaybta booliska ee Waliyo Cadde Cabdi Mire Siyaad ayaa loo magacaabay la taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya isagoo horey u ahaa taliyaha qaybta Waliyo Cadde taliyaha birmidka ciidanka booliska ayaa loo magacaabay Yuusuf Xundubi oo horey u ahaa taliyaha saldhigga booliska galbeedka gobolka Banaadir Yaasiin Nuur Khayr ayaa loo magacaabay taliyaha saldhigga degmada Dharkiinle gaashaanle sare Cabdullaahi Mire Siyaad ayaa loo magacaabay taliyaha daraawiishta booliska Aadan Xirsi ayaa loo magacaabay taliyaha socdaalka ciidamada booliska Puntland oo shaacisay maraakiib sharci darro ah iyo dalalka laga leeyahay maraakiib kalluumaysi oo laga leeyahay dalalka Iran, Pakistan iyo India ayaa waxay kalluumaysi sharci darro ah ka wadaan biyaha Soomaaliya maraakiibtaas ayaa waxa lagu eedeeyay inay xaaluf ku hayaan nooc kamid ah noolaha badda Soomaaliya oo ay mamnuuc tahay in la qaato kuwaas ay maraakiibtaas qaataan wasiirka kalluumaysiga maamulka Puntland Farax Awaash ayaa sheegay 18 maraakiib oo shaaciyay magacyadooda ay dhibaato badan ku hayaan biyaha Soomaaliya wuxuu wasiir Farax sheegay in wasaaradda kalluumaysiga Puntland iyo wasaaradda kalluumaysiga dawladda federaalka ee Soomaaliya iska wareysteen maraakiibta isla markaana labada wasaarad aysan wax ogolaansho siineen Farax Awaash ayaa waxa intaas ku daray in ciidamo gaar ah ay u dirayaan soo qabashada maraakiibta isla markaana loo istaagayo meelaha ay marayaan wasiirku waxa intaas raaciyay in maraakiibtaas ay wataan calaamada dalalkaas in la soo qabtana ay ka caawinayaan satellite-ka sida darteedna ay rajo wanaagsan ka qabaan in gacanta lagu soo dhigo maraakiibtaas ayuu sidoo kale sheegay dawladda federaalka ah ay dacwad ka dhan ah gudbisay isla markaana meel kasta oo caalamka ah aysan ka iibin karin kalluunka ay ka xadaan Soomaaliya iminka qodobka ugu dambeeya ee dibadda Mareykanka oo Turkiga ku cadaadinayo inuu ka baaqsado duulaankiisa waqooyiga Suuriya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay inuu dalka Turkiga u diray wafdi sare oo hogaaminayo ku-xigeenkiisa Mike Pence si ay Turkiga ugu cadaadiyaan inuu joojiyo dagaalka uu ku qaaday waqooyiga Suuriya Trump waxa uu sheegay in wafdigan oo sidoo kale ku jiro wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ay Turkiga bixi doonaan maanta Arbacada hadafka weyn oo yahay sidii Ankara ugu weydiisan lahaayeen xabad joojin Mr. Pence oo lagu wado inuu madaxweyne Erdogan Khamiista berrito la kulmo ayaan miiska saari doona shuruudo ay ku jiraan xabad joojin degdeg ah wada xaajood ay Turkiga kala galaan arrinta dib-u-dejinta qaxootiga Suuriya sidoo kale waxa uu miiska saari doona la iskuna soo qaadi doona arrinta cunaqabateynta oo Mareykanku saaray Turkiga taasoo maamulka Trump wacd ku maray in la sii xoojin doono haddii uusan Turkiga ka laaban weerarka uu ku hayo maleeshiyada Kurdiyiinta Suuriya
intaas ayaan kusoo afmeernaa warkaad maalin walba hada ay kala ka daawataan Wacyi TV tan iyo kulantan dambe nabadiino. Wacyi TV waxa uu taagan yahay soo bandhigida wajiga wanaagsan ee dalkeena iyadoo laga fogaanayo wax kasta oo sumcadil u keenayo wadankeena. Wacyi TV waxa ay idin duubayaan xayeysiimaha ku saabsan goobaha caafimaadka, waxbarashada, ganacsiga iyo dhammaan hawlaha aad sida gaarka ugu baahan tahay. muwaadin ku xirnaa muuqaalada uu soo gudbinayo Wacyi TV si aad u hesho wax badan oo ka dahsoon. Wacyi TV waa TV ugu adeega bulshada si furan waana caawiyaha dhalinyarada hal-abuurka leh ee jecel inay helaan cid ka caawisa meesha ay ku soo bandhigi lahaayeen xirfadahooda gaarka ah. Wacyi TV waxa uu ku suuragelinayaa inaad si toos ah kala socoto dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee caalamka. TV-gu langorada Wacyi TV meebaha keen gudbiyay barnaamijyada xiis geliyo oo inay iska jaraan barnaamijyo koran qaado diinta, caafimaadka, walbarashada iyo aano ku sii tir badan. ma doonaysaa inaad heshid cid ka caawisa muuqaalo aad u heer sareeya oo soo jiidasho leh fadlan la soo xiriir Wacyi TV.